madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa madaxweynihii hore Barack Obama iyo maamulkiisu ku eedeeyay inay dhageysanayaan telefoonada gacanta ka hor markii uu ku jiray ololaha doorashada inta uu soo noqon madaxweynaha aqalka cad ee waddanka Mareykanka. hadalkan uu bartiisa Twitter-ka ku qoray Donald Trump ayaa wax cadeynaysan ka muuqanin. xogayihii hore ee sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in dhageysiga telefoonada in la dhageysto ay dan u tahay shacabka Mareykanka iyo guud ahaan ammaanka waddanka Mareykanka isla markaana lagu adkeynayo ammaanka waddanka Mareykanka. waxa uu sheegay xogayihii hore sirdoonka waddanka Mareykanka in aan la dhageysan kareynin dadka u ordaya jagada madaxtinimada ama markay ololaha ku jiraan, taasina ay tahay mid uu ka been sheegayo Donald Trump. madaxweynaha haatan ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu eedeynayaa in uu xiriir dhow la leeyahay dalka Ruushka isla markaana doorashadii waddanka Mareykanka ka dhacday ay ku gacan siiyeen in uu soo baxo isla markaana ay ku arqalad u geysteen sanduuqyada doorashada ee uu kaga guuleystay Hillary Clinton.